madaxweyne farmaajo madaxweynahan isnaqaano weeye haddii waxaan iska warsannay dalka waxaan ka wada hadalnay sidii wax loo qaban karo ayaa laga wada hadlay sida aan uga xumahay dhibaatada dalka haysata iyo baabaa la baabi'inahayo ummadda ayaan ka wada hadalnay ilaahay in loo noqdo oo shacbiga Soomaaliyeed ilaahay u noqdo oo dadka baabi'inahaya ay ilaahay u noqdaan oo ilaahay la baryo oo quraanka lagu baryo oo balaayada inuu naga dulqaado laga baryo ayaan ka wada hadalnay shirkii u dambeeyey siyaasiyiin baa ka qayb gashay waa la socdaa siyaasigu ma aha arrintiisu siyaasina ma aha haddii arrintiisu tahay kursi doon uun keliya siyaasigu waa inuu noqdaa wanaagga dalka qof u dagaalamaya marka waxaan leeyahay ha la isgarab taago hadba dawladdii timaadda iyo tan hadda jirtaba ha la isgarab taago ha la toosiyo haddii wax ka qaldan yihiin ha loo toosiyo ha lala taliyo gacan iyo garab ha la siiyo dalku si uga gudbo xaaladda uu ku jirana ha laga shaqeeyo saasaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hadda ka horna u sheegay oo ku celceliyey ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس قفك نفد له أنا أيضا نفك إن الدشي دراد اللو دلين وحلمدي هاي ويري إلى هاي ومضوا دن قفلا يبو لمدي يا مركا إلى هاي إن الوصو النقضه ليس كدا يددك الله قرحينها يولا بابينها يو وحي لقبه oo la sheeganayo ama dawladda laga sheeganayo ama dadka laga sheeganayana inta la wada hadlo si diintu ogoshahay in looga heshiiyo ayaan wax badan kala hadlay haatan leeyahay